أهلا وسهلا كسر هذا مرة بعد برنامجكم مسامح كريم مالين والبا برنامجكم waxaan ka faa'iidnaa qisooyin iyo waxyaalo badan oo inaga faa'iido weyn inoo ah qalbiyadeena qaboojiya dadkana isku soo dhaweeya walaal ay dhacdo mararka qaar kood inaan ku guuleysan weyno barnaamijyada qaar kood maanta waan rajaynaynaa kan inaan ku guuleysano qisadan maanta idii hayo waxay qosaysaa gabadh iyo saddexdeed iyo wiil iyo hooyadii gabadhu wiilku qabay ayaa maanta waxay dalbatay inay aragto saddexdeed waxaana la yiraahdaa Khadiija Maxamed Talib oo Suuriya ka soo jeeda ila soo dhaweeya أهلا وسهلا كسر برنامجكم مسامح كريم واندوهي مدن ما شاء الله قف أمسن بطهي ملا ما هتشدني يا أمسنات وانا شيء لكن وان هدلع ما شاء الله وليبا قبل قروح بدنا حجابن بطهي واد ما حسنتي خديجة حاسكي أحمد سو سدا ما ها waxaan ka soo jeedaa dalka Suuriya inta aan wada sheekaysan anigii Khadiiji bal qisadeeda aan wax yar idiga taabto waxay daarantay qisadeedu iyadii saddexdeed ilmihii ugu horeeyay markay dhashay Khadiiji waxa uu timid saddexdeed si ay u gargaarto una caawiso inankeedu qabo waxayna qoyska u ahayd qof caawinaysa iyo ubadka ayida u ahayd iyo kan yar hadda soo kordhayba aad ayay u dhaxgashay nolosha reerkan haddaba Khadiiji kama helin in ay saddexdeed awoodda guriga iyadoo ay la wada wareegto iyadoo waliba saddexdeed caawinaysay haddaba saddexdii way ka xanaaqday khilaaf ayaa labadoodii ka dhex abuurmay Khadiija ma jeclaan xaaladaas in lagu sii jiro murankaasina muddo sanada ayuu soo jiitamayay haddaba Khadiija way dhibsatay saddexdeed xadna inay u samayso ay markaa go'aansatay soo sida ma sababta awgeed ayay u timid barnaamijkan Musaamax Kariim وحميد أورانسانا ما أذيك واحد كستيري وين تصون ميا ما يروح كرنا ويجرتها أي سو دبل وجهرين وان كاجم هاد علنيا أنا ونسي ذوق كلام هذا ما علنيا إن يروان كهاد لكراسوا معها دبعت دي يعني صدق ذي نكرا دحمرتاي صدق ذي باسك هو يدي أي تاجنتاي أنا أقول حيت ما ترى يانك جرس ذي صدق سنة نقول بان لا هاي أنا يصدق ذي حرير وناكسر ما نال لهين markastana iyada awood guriga waday waxaan jeclaa inaan aniga ninkaygu kaliis ku ahaano oon anigu gurigayga maamulo sidoo kale isaguna raali kama ahayn islaan aad u qaylo badanna way ahayd gurigayga kadib saddexday anigana waxbay iga sheegi jirtay ilmahayga waxbay ka sheegi jirtay mararka qaarna sida aan guriga u maamulayo ayay wax ka sheegi jirtay waanay amri jirtay aniguna ma jecli in la amro noloshaydana qof soo dhex galo anigu sida aan u labisanahay iyo sida aan u noolahay iyo sida aan go'aan u qaadanayo ma jeclaan in la soo dhex galo arrintii ka bacdi way weynaatay sanad baan anigu si xakameynayay sida ay u dhaqmaysana aanan uga jawaabin maalin baa waxa dhacday waxay timid anigoo aad iyada ugu cadhaysan waanay canaanatay aniguna gurigayga ayaan ka eriyay isma dajin oo lama hadal kadibna si toos ayaan guriga uga eriyay maya anigu lamaan hadal oo waaban eriyayba kadib waxaan ku idhi aniga gurigayga iga bax noloshaydana ka bax aragaagana iga qari islaayay gabowday khalad ayaan ka galay marka waxaan doonayaa waa hooyaday oo kale maanta halkan waxaan u yimidinayaa cabso adigu xiriirkiini ma toos bad u goosay mise mararka qaar kood ayaa jirta inaad la xiriiday annagu sanad wax xiriir ma aan samayn sidii maalintii iga tagtay ayaanay iiga maqnayd oo ninkaagu arinkan miyaan soo dhaxgelin aniga ninkayga dib yar ayaa naga dhex dhacday markii aan hooyadii guriga ka eriyay aniga ninkayga cuquba ayaa nagu dhacday nolosheedii way noo wanaagsanaa weydii aniga isaga iyo gurigiiba markii aan hooyadii waan wada noolnahay laakiin nolosheedu farxad kuma jirto mararka qaarkood ma wuxuu kugu cadaadiyaa inaad hooyadii ixtiraam weyday ma ka xumaaday arrinkan markaa uu ka xumaaday anigana wuu ii cadooday ma waxaad doonaysaa saddexda inaad raali geliso oo inaad ka ducaysato si aad u kasbato ninkaaga wanaagiisa hore waxaan doonayaa in qaladkayga hore saxo waad ku mahadsan tahay sida kalsoonida leh ee qisadan aad nagu soo gudbisay aad baan kaaga mahad celinayna anigu fariintii waan u diray saddexda ahayd marwo sana nuuri bal aan aragno inay ogolaatay inay timaado stuudiyahan